السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan ardayda ku xiran page-ka lama huraan IT waan salaamay dhammaantiin. waa anigoo ah Injineer Axmed Xasan Qamaan. waxaan ku soo qaadan doonaa casharkeena maanta how to log password your PC, how to check your hard disk, how to check your RAM, how to know your computer's activation mode, sidee u samaysan kartaa username and password computerkaaga. waa markuu cusub yahay waxaanu ku lahayn username password, markaasaan dadka kula isticmaalin daatadaada waa inaad username password u samaysaa. sidoo kale sideed u eegi kartaa hard diskaaga. matalan hard diskaaga waxaa lagaaga iibiyey 500 GB. okay 500 GB ma garanaysa adigu, laakiin waxaa lagaa iibiyey 300 GB. okay hard diskaaga intuu yahay ma garan kartid haddaan aqoon aanad u lahayn halka laga jeegareeyo. marka 500 aad adigu iibsatay ma ahan, waa 300. okay laakiin haddii aad aqoon u leedahay loo jeegareeyo waxaad oranaysaa adeero 500 ayaan doonayay laakiin kan waa 300. oh sorry, ma isaga qofka inay laga yaabo inuu 300 500 yahay aanu garanaynin oo sidoo 500. marka maadaama aad aqoon u leedahay waxaad oranaysaa adeer waa 300 ma doonay kan 500 GB. laakiin haddii la arko adoo garanaynin waxa la qoranayaa la arko 500 intuu dhisatay 500 hard disk baan baahnay ama 700 GB ayaan u baahanahay. marka la arko inaad ku dhigsantay 700 ama 500 GB waxaa la oranayaa wallahi kan maba garanayaba 300 marsiya. marka si aan lagu khiyaamayn waa inaad ka digtoonaataa oo aad adigu hard diskaaga tijaabin kartid. sideed u eegi kartaa RAM-kaaga? RAM-ka waxaan u baahanahay 4 GB. RAM waxaan u baahanahay 4 GB. okay waxaa lagu siiyey 2 GB. waxaan u baahanahay RAM ah 6 GB. waxaa lagu siiyey RAM ah 4 GB. okay marka lagu siiyo computerkii aad maaragtay aad ka bixin ama qofkii aad si kanahan ku kala wareegaysiin waa inaad sheegaraysaa RAM-ka intuu yahay iyo hard disk intuu yahay. okay username-ka waa markaad qaadatid computerkaaga ood ku qanacdid intaan oo dhan ayaad computerkaaga markaa username and password u samaysanaysaa. laakiin horta marka hore waa inaad hard disk ka sheegaraysaa, RAM-ka waa inaad sheegaraysaa. okay intaad doonaysa markuu yahay waa inaad qaadan kartaa. marka sidee u eegi kartaa computerkaaga inuu activation yahay Windows-kaaga iyo in kale? macnaha activation waxaan ka wadaa Windows 7 hadduu ku jiro Windows 7 aanu activation ahayn oo uu ku siiyo 30 days activation free trial. 30 days trial hadduu ku siiyo macnihiisu dagaa isha kadib Windows-kaaga iyo daatadii ku jira oo dhan wuu kaa xidhmayaa. okay dadka qaarna wuxuu siiyaa 3 days ayuu siiyaa, dadka qaarna 3 days. okay marka si aanu waxaa kuu siinin qoladaad ka iibsanaysa waa inaad tiraahdaa adeero Windows-kan aad siisay maaha active, waa ima garanaysid si loo active gareeyo, aqoon uma lihi. marka waa inaad albaab kala bixin isagoo aan activation ahayn. waxaa wanaad inuu active yahay, inuu RAM-kaaga inta doonaysay hard diskaaga username password wuxuu dhan inaad aqoon u leedahay. okay waxaan ku soo qaadan doonaa maanta shirkeenna 4 su'aalood shan u xalin karno. okay wixii intaa dheer faahfaahin ah tidoo soo xiri kartaan email-kayga iyo mobilkayga gacanta. okay ashirkeena iska bilaaban doonaa. okay inta uu ashirka inoo soo kici doono waxaan iska sugi doonaa shaalinta soo kacaya.
windowskina wada aragtaan waa bilaa password oo noo soo kici doonaa wax password inama weydiinayo okay laakiin hadhow san ugu xidhina passwordka userka waa inaad eegtaan si idinku aad u xidhataan okay welcome waxay imkana weydiin lahaa username iyo password haddii uu noo leeyahay user iyo password laakiin nooma laha okay okay way noo soo kacay okay waxaan ku bilaaban doonaa horta haynoo dambeeyo username iyo passwordka waxaan ku bilaabi doonaa sidee baad u eegi kartaa raamkaaga sorry hard disk laba nooc waa loo eegaa kow computerkan ayaad computerkan baad laba jeer click siinaysaa oo lefty click oo level ah oo markiiba dhigdhig okay halkan waad ku ogaan kartaa hard diskigaan haysta waa 360.2 GB inta aan isticmaalay hadee waxaad kala jaraysaa calculatorkaaga soo qaado okay waxaan haystay markii hore 360.2 GB ka jar 750.2 6 GB baa isticmaalay okay 750 baa ka dhiman iyo 3 dheeraadka 6 GB ayaan isticmaalay marka mararka qaarkood waxa lagu oran karaa walaal inta kale waa hiding uu qarsan yahay waa 500 iga rabtay 63 gani waa only local disk waxa baa dhima dhiida waa hiding marka walaal 63 gaas waxa weyn waa local disk intii kale uu qarsan yahay 400 dheeraadka okay aduu garanaysa marka hard disk sad weegtid taaro sawirtii waa hiding okay sad marka u xaqiijisid hard diskiga inuu yahay 63 oo complete iyo inuu wax qarsan yihiin halkaad click siin kan waad iska xidhaysa waxaad raacaysaa right click manage aad click siinaysaa waxaad sugaysaa inta uu soo kacayo manage-ka okay manage wuu soo kacay waxaan ka dooran doonaa disk management oo macnaheedu ah in hard disk wixii aad habeystay uu ku soo saaro inta GB ka gooban yahay reality-ga iyo intii aad isticmaashay iyo intaad kala qaybisay aad ku sameysay partition-ka uu ku soo saaraya okay so complete oo really oo ah GB-ga saxda iyo intaad qaybisay partition ku sameysay wixii oo complete information-ka hard disk-kaaga halka mad ka helaysa meel kale ka raadin halkaan dooranay my computer right click battery manage baa dooratay okay manage marka dooratay intan buu ku sokeeyay marka connect the virtual disk service waad sugaysaa inta uu dhammaynay connect ku xidhayo disk management marka siisid waxaad sugaysaa connect to virtual disk service inta uu dhammaanayo kadib waxaan noo saari doonaa hard disk-keena okay way noo saaray muxuu yidhi system save waa 100 MB markaasna waxaa soo sheego dib ma laha 100 MB local disk waa imisa 63
waxaan ku ogaanayaa inuu yahay inay gb ii qarsoon tahay hiding ah iyo inaanay qarsaneyn waa tan ayaa caddaynaysa wax walba. kuwan ha eegin, kan mar walba eg basic disk 0 basic 63.36 gb. haddii 500 gb halka 460 gb uu soo qoraya. okay, halkana cajalati igu jirta waa 3 gb 72 kan ku xisaabtan mar walba waa inaad jeegarisaa. halkan wuxuu soo saarayaa xaqiiqda hard diskigaaga inta gb uu ka gooman yahay oo complete ah. 100 partition ku samee, 100 hiding ku samee, isagu inta runta ayuu soo saaraya. okay, marka hard diskigani marka waa 63.36 gb. okay, intaa waan isla garanay hard diskiga sida u eegan lahayd. hard diskiga inaad computer right click tiraahid, manage ku dhafatid, kadibna aad kasii dooratid disk management, kadibna aad halkaa eegtid. okay, kaan iska soo xirina. waxaad sidaad u eegi kartaa raamkaaga right click properties. okay, Windows edition computerkaaga informationkiisa kamad kala socon kartaa. Windows 7 professional baa ku jira, Windows 7. okay, rating system rating not available. okay, processorkaygu waa core i5. okay, haddii aad tira core i5 aan doonayo core i3 lagu siiyo halka mad ka eeganaysa processor, kadibna raac leadkan processorka waa core i5 ka i5 iyo core i5. okay, processorka waa 2.60 GHz, waa inta speed kugu soconayo xawaarihiisa aad u sareeyo 2.51 GHz. okay, processorku sida fahnay core i5 inuu yahay speedkiisa 2.60 GHz. installation ramka waa 1 GB. waxaad doonaysay 4 GB 1 GB laga iibi kaana taageerayay. marka ramkan ka madkayayso ka ramki waa 1 GB. system tanku programada qaar baan 32 gaan u akhriyana 264 yahay koona 64 ku shub. marka mar walba 64 baad iska shubanaysa. system type haddii uu 32 man kugu shubnaa mise systemka 64 ayuu shubanaas 64. computer name ka lama waraan IT waxa loo baahnay. okay, kan u baahno ka Windows is activated. halka madkaysa Windows activation ka okay, Windows is activated. haddii aan wahayn Windows not activated ugu soo qoraya. dadna wax ku siinay maalmaha kuwa haray reminder days ka. okay, waxaan isla garanay ramkii inuu yahay 1 GB, Windows-kayga inuu yahay activated. okay, intaan waa isla garanay. okay, waxaan u baahnay inaan markaa sameeyo user iyo password. kan baad start menu-gaad click siinaysaa, control panel ayaad dooranaysaa. control panel markaad dooratid add or remove user account kaasaad click siinaysaa. kadib labadaasaa soo baxay. kan waa castis oo badanaa waa iska off haddaad dadku furtiisa. okay, haddii kalena offkaas ka hado. marka ka caadiga administratorka isticmaalaysa waa kan. marka password ma laha. saan ku ogaan kara inaan lahayn halkan baad laba jeer baad click siinaysaa right click left click tag. okay, create password ma laha. imika ku leeyahay samee password. haddii si lama horaan aytiin aad masaxid change the account name. okay, haddii sawir inaad soo dhigtid halkaa yar oo marka sawirkaaga soo baxo change the picture. okay, imkaan bedelno. okay, kuwan waa original. waxaa la sameeyay Bruce or more desktop. okay, حبا إيميلان
waxbay ma yaalaan. Okay, okay, ku bedeli kartaa change password. Okay, haddii kalena change picture inta tiraahid aad doonaysa browse for more picture oo desktop-kaaga ka soo qaada sawir aad leedahay. Okay, password waxaan sameynaa create password. Okay, new password Ahmed 123. Okay, confirm mar labaad baad ku celinaysaa Ahmed 123. Okay, kan waxa weeyaan tape for hand haddaad ilowdid Ahmed maxaad ku soo xasuusan haddaad ku qortid Ahmed 123 qofka computerkaaga wuxuu oranayaa forget password kadibna wuxuu qoranayaa hantiga waxaad gelisay Ahmed 123 waa uu sheegayba qofka Ahmed 123 buu eegaya uu gelinaya marka ha ku qorin fadlan passwordkaaga complete waxaad ku qoranaysaa wax yar aad ku xasuustid AMD ama AMD. Okay, 123 raacinaysid haddaad intid 3 baad raacin marka qofka intaas u gelinaya hadhow laakiin qofka intelligence-ka ee maskaxda ka shaqaysiiya wuu fahmaya in ASMD loo soo geebiyey Ahmed 123na uu yahay 3 lambar oo isku xiga oo 123 qofka maskaxda xagga xisaabaadka intelligence uu iska fahmaya marka laakiin qof intelligence haddaan lahayn waad iska gashan kartaa laakiin mar walba waxaa waa inuu ku ahaadaa wax security. Okay, x baan geysanaya marka anuu iska fahmaya adhow markaan Ahmed 123 gashanay. Okay, create. Okay, iminka password protected hadda password uu leeyahay change password markaad bedelisid markaad ka saaraysid passwordkii okay naga xid restart. Okay, noo soo kacaya marka hore muxuu noo oranayay welcome laakiin iminka password uu weydiinaya. Okay, waxaan ku ogaan doonaa daba matalan iminka password maan gelin password baan geliyey enter baan idhi wuu iga diidaya the username or password is incorrect. Okay baan siiyey halkan muxuu soo qoray password hint AX hatta markii Ahmed 123 gelin halkaas laga arkay. Okay, marka AX yani waa Ahmed 123 enter. Okay, halkan waxaan ugu dhamaaday sideebad u ogaan kartaa ashirkeennii cusbaa ahayd sideebad u ogaan kartaa harddiskaaga iyo ramkaaga iyo windowskaaga inuu activation yahay sidoo kale aad password ugu samaysan kartaa computerkaaga. waa anigoo ah engineer Axmed Xasan Qamaan waxaan tegaysaa kulanti dambe oo xiiso leh. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.